Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan wanaagsan walaalaha channelka dhaqankaaba ku xiran. Waan idin salaamay. Waxaan idin rajeynayaa caafimaad iyo barwaaqo. Intii dhibaataysan xanuunsan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka dulqaado. Qof walbana hamigiisa khayr u leh Ilaahay ha siiyo. Intaa kadib saaka waa ari raacid mar haddii reerkii la degay hilib la cunay. Maantay waxaan idhi ariga aniga raacaya saakay weliba wuxuu ahaa subaxii ugu horreysay markaa aragu cusbaa oo waxa weeye birinka ama meesha la soo degay maxay tahay xerada la yimid ama deegaanka la yimid oo arigu ku cusbaa marka wax duubaya waxaan idhi sida balanteenu ahayd aniga ayaa gabadhiya aniga ayaa maxaan ku iri hooyadiya dee wax walba aniga ah wixii marka aan qabanayo marka saaka arigi baan raacayaa sida u jeedaan meeshu waa barqa dharag waa barwaaqo Ilaahay baa u nimceeyay wax badan bay ka naq badan tahay deegaanka hore aan deganayn dhul ahaana waa la kala duwan yahay waxa weeye dhul dhagax ayaa ku jira xitaa qaarkiis waa dhul caduun iyo dhagax isku jira marka ariga waa la isku duway hadda ayuu guriga ka tagay guriga u dhownahay waa idihii waxa halkaan socda iduhu mar walbana waa iska dabaadi ariga ari cadkaana wuu hormaray ama riyaha saa u taqaano oo marka xerada ariga maxay tuu soo dareero isla markiiba ari cadka ama riyaha saa u taqaanid ayaa hormara marka idihii baan hadda ka dabageynayaa arigii kale wadinka u jeeda xaalku saaka waa raacid aduunkuna ina keena kaale ila raaca saaka kaligay baan ahay dee waan cabsanayaa yacni cabsi meesha bahal ma joogo waan cidloonayaa ayaan kala jeedaa marka dee wanaga arigeena halkaa ilaashanayna hadda ka hor waxaan soo dhigay video aan ari la joogo laakiin wuu ka duwan yahay muuqaalkaas waayo xilligaas waxay xilli naqdeg ah oo arigu cagaarka u cusub yahay ama dooga saa u taqaanid uu dhib badan yahay hadda laakiin wuxuu u baahan yahay arigu marka xilligan oo kale ay tahay in la isku duuduwo oo marba dhan laga soo duwo kii hadba dhan u leexda waayo ari ilaalinta aad maqasho inta ariga aan ilaalintiisa fahansanayn dee waxa weeye ariga markaan oo kale dhinacyada ayaa laga maraa hadba kii meel u leexda si markaa uusan u jeedaan naysha ayay dhashay waxaan wada waa nayl idaha marka ama xoolaha markay waxaro ay kala yiriin waxaro iyo nayla ay u kala baxaan waxaraha iyo naylaha markay u kala baxaana dee naylu waxay si kala noqonayaan haddana nayl iyo wan bay si kala noqonayaan marka midaan hadda aan wada waa nayshii dee anigaas ka haysta mid yar hadda mar dhow dhalatay hooyadeed ayay la socotaa nayluhuna way iska dhib badan yihiin haddana ariga maxay tahay hadba aan laga warhayn meel bay iska seexanayaan kadibna waxaan ku ka harayaan laxdii marka maasha Allah meeshaas quruxda badan ayaan la joognaa arigii oo qeyb mar aan soo rogaynaa hooyadeed baan u dhigayaa inta yarta ahayd kor u hayay iyo hooyada isku xiiseen waata hore bay ka nugtay ama ka jaqday maasha Allah hooyo waa cajiib wallahi hooyo la'aanteed wax yar xitaa lama joogi karo markaas si walba tahay saaka ari raacideen waa halkaa arigu ma dhibadna wallahi waxaan ku iska baashaal raacitaankiisu ka meeshaas quruxda badan baa ariga la joognaa geedaha halkaa ka muuqda ay riisi maray geedaha yani halka qiblada ku sii aadan waaweyn garowga ama qurac saa taqaanid marka hadda idihii ayaan ka sii daba kaxaynaa ama ka daba geynaynaa markaas ka barta dee ariga aduunkuna waa ila jirtaan aan raacida iska barta arigii hore aan la joogay dad waxay lahaan arigii xageed u cayrinaysa xageed u kaxaynaysa dee arigaas isaga naqdag joogo kala cararay marka waa la isku geynayay laakiin waa kana ariga markuu dharagsan yahay midba meel buu iska daaqayaa wax dhibaato ma lahan idii waan ka soo tagay riyi baan soo aaday riyi halkaas ay ku carareen marka waan orday orodkaana runtii aniga iska jecel waayo miyiga intaan joogo iska alamiitaya waan iska ordaa waayo dee waa xaweeyo meel aan ciduna maxay tahay aan dee iska banaano free ah oo waxaan ku maanta dad ku jimacsanaysa dad ordaysa dad qaylinaysid mar walbaba ay dee cid ku jeedo maxaad la qaylinaysaa maxaad la ordaysaa cidna ku lahayn meeshan barinkan barwaaqada badan leh ayuu ariga wuxuu ka daaqay iyo baraajis wax la yiraahdo yacni geedaha yararka soo baxa waa lagu kala duwanaa karaa magacyada ilaa halkaas arigu daadsan yahay ilaa halka waxay ku dhahay marar badan dhirtii maxaa ku dhacay dhirta horta waxa weeye sida bini'aadamku u kala duwan yahay ayaa dhulka Ilaahayna u kala duwan yahay yacni qof cad qof dheer qof gaaban dhulka Ilaahayna qayb baa buura ah wada dhagaxa qayb baa banaan saxara ah qayb baa maxay tahay aan dhagax lahayn qayb baa dee ban loo yaqaan caws kaliya ka baxa waxaan ku ri saxara cidla ah marka si walba tahay waxa weeye dhulku kala duwan yahay dhulka ka timid duu hawd yahay dhul kale ayaa jira oo banaana dhulkaana waa dhul dhexe yacni banaan saxaraana ma ahan dhulka hawdkiina ma ahan meel naq badan arigii keenay soo u jeedaan hadda aad u dheeraha kaamira dhaafan waan ka raali gelinayaa dhirka oo u baxay
baradhadii iyo weliba baraajista la yidhahdaa marka aan yaryareen runtii waa cuni jirnay baraajistaas miro ayay yeeli jirtay ayaan tan idhaa oo xubri xagga miraheedu waa kuwana mirahaas yararka way hadda soo baxaya marka maasha allah berigu sidaan u naq badan yahay ariganin waa ka sidaa u daaqaya xitaa qaar baa u jilba jabsaday oo xilkusa u daaqo ariga naqa ku socda maasha allah ilaahay barwaaqada noo siyaadiyo ما شاء الله أرجع سداس أيو جلبها ودكتي يعني نقص وقص عضح حتى أرجع إنتو دالي أيو جلبه دكتي سداس أيو دولكو عجار يدوق ويا هاي إن وادنك وتشيدا أرجعتكي أي أد وداقة جذي يريرا دلت هذا محيط ماشي ويا لي مركا هذا إذا بهدنا الرادينية هلك هذا أرجعتكي وإذا قيا وانصاد المري marka idaha ayaa hadana la soo kormaraya de ari ilaalinta sidaas ka ahba mar badan inaad ka marto dadka qaar waxay soo weydiiyaan bahal malamiya meeshan bahal ma joogo de dawaca laga yaabo marka qaar in laga helo laakiin de bahalada kale midna ma joogaan de dhulkuna waa dhulkii galgaduudeed waxaan ka raaligelinayaa asxaabada inaan sheegin meelaha marka aan wax ka soo duubayo waa galgaduud gaar ahaan waa duleedka magaalada Dhuusamareeb marka waxaan ku ri meeshii la degay iyo meeshii horna wax yar bay isku jiraan dhanka Dhuusamareeb ayaan u soo dhawaanay internetka ugu yaraana runaantii hadda waan helay oo sidii hore way dhaamaa marka halkaas aan iska carray islaan ariga ka carray waxa la rabaa ariga inaad u orado inaad meelaha iska saxsaxato iska maxay tahay xaragooto maahan oo inaad dadaashaa hadba orada dudunta ayaan soo fuulay idiiban ku eegaya ama ku fiirinaya duduntu ma dheera oo dudumii dheera ma ahan marka dudun yar iska caadi oo iska gaaban waxaan saaranahay waa dudun hadda ariga ku eegaya ama ku fiirinaya way ariga qayb afrika noo daaqaysay idihii iyo qayb kale xagga iga leexatay marka geedaha marka dhex maraysid si fiican ma arkaysid ilaa uu duduntan baa laga cunin marka hadda waa ujeedaa hadda soo rabiyaa waxaan saarnaa wax la dudumo ama dudun saa u taqaan idihiina wanigaan u imid marna dhanka riyaha ayaa la aadaya maracadkii marna idii baa la soo aadayaa marka haddii aad magaalo ka timaado walaal ari raacidda iska baro runtii ari raaciddu waa wax aad u wanaagsan dee waa dadka ugu kartida badan leh dadka ariga soo raaci jiray magaalo markay yimaadaan waa dadka ugu kartida badan leh maxay tahay haddii ari raacin haddii geel raaci intaba marka waxaan dhihi lahaa wallaahi waa nolol aad u qurux badan ani weyla qurux badan tahay weliba xilligan oo kale maxay tahay doogan iyo cagaarkan iyo roobkan markii la joogo qurux waxaan kurkaaliska arag aniga waxaa shaqeeye ah markaan muuqaal duubo inaan jarjaro soo hagaajiyo taasoo dhan baa maalinkii shaqeeye ah laakiin haddaan shaqo qaba lahayn maalin kasta aniga ariga raaci lahaa waayo de waa bilaa buuq farxad baa dareemaysaa doogaasi cagaarkaas iskaga dhex jirtaa geed yar baad haba iska harsanaysaa waa maasha allah wallaahi aad idiima ammaanayo laakiin anigu deganaansho badan iyo farxad badan ayaan u arkaa xilligan oo kale xil roobka iyo weliba markii ari la raacayo geel waxaad moodaa iyo xoolaha kale inay dhib badan yihiin laakiin ariga markuu barwaaqo haysto ma dhib badna waa nolol yaroo iska habi ah waxaan u wacayaa wiilan habaryar u ahay oo raadinayay marka waa lii soo raadiyay waxa maanta habaryar baa arigii raacday alla mindha meelahaas bay haraad ugu baktinaysaa ha laga daba tago way daalaysaa mid kale aniga waxay bay iga dhigaan mar walba dee qof magaalo ah oo iska jilicsan aniguna naag adag baan iska dhigay wax kasta inaan la keenaan jecelahay dee miigana waan kusoo koray wax yar baan ka maqnaa ma ahan laakiin wallaahi aad baa la ilaaliyaa guriga sida la dhowrayo marka wicitaankana reemiga la isku waca marka meel fog la kala joogo masaafo fog war hebelo na heblaayo waraariga halka wili dhulka hoydka waan jeclaa dhulkan banaanka waa la isku jeedaa dhulka hoydka waa aad loo qayliyaa orgiga yarka asaguna mar dhaw noo dhashay ridiisi baan insha Allah ina xaafadii u qaadan rabaa hadda duhurkii baa soo dhow marka iyadana waxaan ku asagana waa orgigaas yarka oo kaaliska arka ma sha Allah de waxara yarka dhashay maqalna waa la yiraahdaa waxarana waa la yiraahdaa kadibna orgi buu noqon karaa wax weeyde uu si kala baxaa marka hooyadiin waa tahay daba carrayso hooyo ilaahay cadaabka kuma tuso hooyo wallahi hooyo waa hooyo marka halkaas waxay leedahay cunugayga ayga kaxaynin wallahi luqad bay kula hadlaysaa waanan fahmaynin hooyadiis waxa la yiraahdaa guduudo saas guduudo ama caso yani waa isla meeshii waa neef guduudan ama neef cas sidaa u taqaanid marka waa arag qurux badan ma sha Allah tabarakallah hooyadiis ayaa laga reebayaa marka ma sha Allah meeshaan isaga la sanaynaa argigeenina waa ka ina guduudo
hadda aad nadiif u tahay waa nolol aad iyo aad qurux badan noloshan oo bilaa buuqa oo waxaan ku yiri aad ka helaysid farxad iyo firfircooni iyo nashaad marka ma sha Allah orgigeenina halkaan noo jooga hooyada waa laga reebayaa maxaa yeelay hooyada maanta dhan baa nuugaysa ama jaqaysa marka islaantu waa inay soo daaqdaa caaw ku timaada iyadoo caana leh ma fahamtay aw aqli malid maanta dhan waa nuugaysa xoolaha ilaahay baan nooga dhigin wax hadlaya wallahi hadii xooluhu hadli lahaayeen waxayna dhigi lahaayeen hana qalanina way naga carari lahaayeen laakiin ilaahay baa ugu talagalay waa xigmad ilaahay ma sha Allah orgigeenina waa kaas marka waxaan leeyahay orgigeena soo barbaar noqo mid cid lacag badan kala baxdo yani waan iska ogahay waayo orgida ariga waxa looga xisaabtamaa in la iibiyo jar baa liiradaa marka in la iibiyo ariga barbadiisi way marka waxaan ku leeyahay orgiyow horta marka ugu horeyso noqo mid hooyadiis aan dhibin yaa oo hooyadiis aan dhib u geysan talabaadna waxaan ku leeyahay noqo mid lacag badan reer kala baxaan waa iska kaftan dad baa dhaw waxa laga yaabaa isdahaan gabadh may waalatay xagga ariga ula hadlaysa adinkaan la kaftamaya ariguna waxba ma garanayo marka waka sidii ilmo yar xitaa inaan bootiyeega haysaa caani hooyadiisa ku badbootinaya yaa hooya iska samar gurigii baa lagu geynayaa hooyana caawa ku imaanaysaa kaliya baan maantay kaamiramanka ay duubaya maan cid ka ilaa ma joogto isaguna ma hadlayo kaamiramanku wuxuu duubayaa kaliya yaa markuu kaamirada meel iska dhigo buu dadka la hadlaa marka maxaa diidaya in orgiga iskala sheekaysto ariga maanta dhan baa ariga la jooga ariga ilaalinaya qaar badan baa inay rajeenaya aniga orgigeena guriga aadayna xilliguna waa xilli duurkii ariga mar dhow iska soo rogmanaya ariga waan soo daajinay xaafadii baa la aadayaa sidaas yaa kulan dambe qayr leh orgiga inaan iska qaataa hayso wallahi billaah iska jeclaysto yaa hadaa waxa rahaa horta ku qaada lahaa ari kala ay dhalin laakiin hadda orgi bisaata ay waxa ma dhaleeysid yaa asxaabta qaaliga nayl iyo orgi aan wada nayl iyo orgi marka ariga la joogto oo ilmo ariga ku dhex dhala ama ayaga yar yar ay guriga ka soo raacaan laga soo reebaa marka waliga inta ari raacday shan waxra ama tira waxra ama nayla ah ariga ma dhalay oo isku soo qaaday oo soo xambaartay hadaa gabarta hagoay ku soo xambaartay asxaabta qaaliga codkii baa lismaqli waa dabayl waxa jirta sanad xoolo wada dhalaan ama arag wada dhalo oo laga yaabo markaas inay 100 neef konton sidii reer u kala ari badan yihiin ay markaa dhalaan marka mar waxa dhacda inta ariga saaka lagu raaciyay ay 10 riya ama 5 ama 6 wax la mid ah ay hal mar kugu wada dhalaan kadibna saa oo kala qaadaa maqashi aad weydo ama waxarihii marka adiga haday ku soo martay kulay noo soo qor aniga way soo martay go'aygan ku soo xambaari jiray waxaan ku yiri malkii iyagoo malkii leh waxaan ku yiri dib rafaad marka wallahi waa xasuus hadeerna waxaan wadaa orgi iyo nayl baan wadaa xaafadii baan geynayaa aad baad ugu mahadsanay sida maanta aad ariga ila soo ilaaliseen arigeena waa ka noo dhargay geedahaas buu iska harsanay quraacda ama garuuda shishe tan inta ku kulmi doona mawduuciga sidaas iyo kulan dambe qayr leh